kulan ballaaran ay ku midoobayeen ardayda reer Maaqir kuwooda ku sugan gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulanka ayaa lagu gorfeeyay sidii ay ardayda iskugu xirnaan lahayd, waxaana ka qayb galay madax, arday iyo aqoon-yahano kuwaasi oo dhammaantood ka soo jeeda deegaanada Maaqir. Muddadii uu kulanka socday, ugu horeyn dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Nuur oo horey wasiir uga soo noqday mid ka mid ah xukuumadihii dalka soo maray. waxaan ku waaninayaa wax kale ma aha horta waxaan inaad noqotaan arday fiican, arday isku xidhan, arday midaysan, guddi fiicanna aad doorataan, danihiina ka shaqaysa, wax kale ka shaqayn maayaan. guddida waxaa ka shaqaynaysaa danaha ardayda. horaan usii sheegay waxay yihiin danaha ardayda loo baahan yahay wax loo qabto. marka midnimada waa muhiim. sidoo kale dadka ka hadlay madasha waxaa qayb ka ahaa Maxamed Muuse Badle oo ku xil dheeraaday muhiimadda kulanka. kulamadii hore waa kaga duwan yahay sida aad boorka ku aragtaan, waa isku tashiga dhalinta wax ka barata Muqdisho oo ka soo jeeda Maaqir ama reer Maaqir. marka waa ogtiin caalamka maanta hal qof lama ixtiraamo ama hal qof wax badan ma qaban karo, xataa hadduu wax qaban karo adduunka maanta aynu joogno hal qof lama qiimeeyo. waxaa la qiimeeyaa institution, waxaa la qiimeeyaa union iyo ururo. haddaadan urur ka socon oo aad jaamacadda wax yari kaaga dhacaan ama xaqaagii lagugu soo taxadiyo, waxaa laga yaabaa inaan wax badan lagu tixgelin. dhanka kale dadka madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa aqoon-yahan Cawil Maxamed Saalax oo ardayda ku booriyey muhiimadda midnimada iyo wax wada qabsiga. runtii midnimadu wax badan bay idinka caawinaysaa. waxaad joogtaan deegaan aan deegaankiina ahayn, waxaa u timaadeen waa hadaf, waxaad leedahay caqabado badan oo kala duwan. waxay u baahan yihiin in lala tacaalo caqabadahaas. si aad ula tacaashaan waa inaad midaysnaataan. qofba meel haddii ay ka hesho way qaadanaysaa, laakiin midnimo haddii idinku hesho wax badan baad ka badbaadaysaa. dhankeeda abwaanad Xamda Cabdirasaaq Maxamed waxay kulanka ka jeedisay hadallo soo jiidasho leh oo ay kula dardaarantay ardayda, waxayna muujisay muhiimadda wax wada qabsiga. ujeedada aan maanta ka hadlaynaa waxa ay tahay midnimo. maanta waxay nahay dhalinyaro, laakiin berri ma ahaanayno. waa fursadda keliya, waa fursadda ugu qaalisan ee noloshaada qofka soo maraysa, kuma soo mari doonto mar labaad. marka adigu maanta waxaad qabato waxay dhaxal u tahay caruurtaada iyo cid kastoo kaa dambaysa. waxaad u ahaan doontaa tusaale togan. waa kii abwaanku lahaa, istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday bidixdu kali taagan tahay tahar ma goyseene. sidoo kale dadka ka hadlay kulanka waxaa ka mid ahaa Maxamed Cawaale oo ka mid ah dhalinyarada ganacsiyada ku leh magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda deegaanada Maaqir. doonayso dalkaaga iyo diintaada iyo dowladnimada maanta aad rabto inaad u hiiliso, waa inaad ka bilowdaa dadkaaga, isla dadka kale inaad ka soo bilowdo maaha. laakiin dadka kaliya wax kaa dhagaysan karaya waxay yihiin oo dadkaaga weeyaan. macnuhu intaasunbuu dhacaya. haddii xataa aad qabiilnimo xataa aad maaragtay aad ku kaxaysanayso, haddii aad saaxiibtinimo, wixii wanaagu markaas inaad dadka ula kaashato weeyaan. dhanka ardayda waxaa ka mid ahaa xubnihii ka hadlay Maxamed Axmed Cabdi iyo Dr. Cabdiqani Cali Wadaad. xafladan soo qabanqabayaasha xafladan ka soo qayb galay oo in badan juhdi iyo ku bixiyay dadaal oo muddo 2 asbuuc isku keenay dhalinyarada, inagoo og kaalinta ay ka qaadanayso in dhalinyaradu ay isku xirnaato oo union noqoto. qabanqaabiyaashii dhalinyaradii isfalqaamka muuqda samaysay oo runtii garashada habboon ahaa oo runtii hirgeliyey in xafladdan quruxda badan ay isugu nimaadno. aad baan ugu mahadcelinayaa. man laa yushkiri naasa laa yushkiri lah. intaa kadib runtii ahmiyadda ay midnimadu leedahay si fiican baa loogu dheeraaday oo si sal ballaaran baa looga hadlay. kulankan ay iskugu yimaadeen ardayda reer Maaqir ayaa qayb ka ah kulamo hore oo looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa xiriirka iyo wax wada qabsiga dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Maaqir. Faarax Cabdi, warbaahinta Midnimo, Muqdisho.